gabdhihii ka xanaaqay heesta hore waa maasha Allah waa si fiican u sameeyay marka ilka casaqays ba amaanay gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho sharaf leh waana idinku faanaa guuleysta dhamaantiinba marka heestan sidee u aragteen saddexdiina rag oo meesha saaran abwaak bukor dhacay rijalay abwaak sur abwaanad ma isisay horta Ayub Carlo Ayub Carlo horta waa idin hormaraa waa idin codsanaa hormarsan ay niyo Ayub Carlo horta Soomaalida inta badan waxa laga dhigay horta dumarku waa mabaanti absolutely hadda xaaladii socdana baraha bulshada kala socda mabaanti sidii Soomaalida hadda tiraad meel hebel wax ka dhaceen oo saas qof iyo loo qaldan yahay si kala lagu fahmo mabaanti ani hal mid aan ku soo koobaya waxaan ku soo koobaya horta dumar waa nolosha waan dhaleen mabaanti waan u dhaxay doonaa baasho haddii xataa heblaayo markii ammaan lagu soo qaato warkaas war xun maaha laakiin haddii si kale loo isticmaalo xer wax qaab daran mabaanti garoonka koonisa leeba hore ku qaadaqays wuxuu yidhi garoonka koonis buu yidhi habee garoonka koonis waxuu sheegay marka niyo fanka gacan kooyintiisa aniga socdaal iyo waxaan qabaaba iyo ninka odayga loo baaquli waxa dhibaato jirta waxay tahay aan kuma xushmay laakiin waa u qalantaa fanaan ahaan lagu hadda mid bajaajlaa soo raaca moogtahay nin weyn waay marka da'daan adiga 40 xogaa ilaa 50 ku dhawaan baad niyo waxaa leeyahay niyo fanka wax xumaadan iyo mid dhahan socdaal maqashay oo fanaan waa maqlay waxaas fanaan la dhigi karaa baaqul bay maqasan waa maqlay ma laga yaabaa dhageysatay allahi ka alla oo yimaad sax qoslay video marka asaga marka ileen kama fasax qaadan laakiin ana video isku aadiyay asaga waa la sheekaysanaa codka laga dhex maqlaa baad sax markaas waxa lagu diraa mataqaana kuwaas waxa oslay dawladda wax xabsidaa inuu ku xukunto baad sax أنا إتقص لي أمريكا الحكينا على دورة باقول بوانو أبو بحي شيء يسوي شبات مرحنيو أوكي وصول هذا أصحابتي الغالية أصحاب سوى هذا ودونا يبوك السلام خيرت السلام الله ما شاء الله كاقد وصول هذا يبوك السلام خيرتك الله سلام ما شاء الله في غالية هذا هستي سو دغستي محاول لكن كان وراني راح يشتغل على وتاي جروك كوريس بحودا نيك جول كدلي واي هي سوماليا ونفعي ما يعني ومجدا شرماكي تودي استوى مكيلة ونفعي سدلي فيري يا أصحابي حواي متقانا horta waxaan ilaaha bixin faanti صح واي sabab ninka wax waa ka dhici karaa laakiin quraankiisa nagu sheegay hadaan doon wuxuu yiri waxaan bixiyaa gabdho iyo wiilal sida Nabi Maxamed hadaan doon wiilal bi Xasan Ibrahim sida loo kale waxa ka dhigay qof marka ma aragtay waxba marka qofka doon wax ka reebtaa yiri faanti صح marka waxa waay sida loo kale gabdhaha siiya sida hebel oo kale Nabi Yaxyo kale aqeera kale madaleysan ka dhigaa marka waxaan wax xaq alle ka qorin faanti marka social media marka aan waxaan qabaa qofka lugtoo qaaday inuu iska fiirin faanti saaxiibkay CK horta aniga dad isku dhowno kamid yahay horta su'aash video marka dhigaysto waxaan dhahay niyo CK page ko qaaday leel baleel muxuu qaadi waayay su'aal ku isweydiin runta fiican mugtahay marka waxaas dhahay heesaha maadaama oo fanka laga soo horeeyay page-ka adima dooranayas dhahay faanti Ayub Carlo kale 2015 ku soo ziyaaday aniga 19 ka socda Ayub Carlo waxay heesto asaga ma loo bandhigay asaga ma online page kana qaadana ma wasleeya macna waa faham waa faanti صح الحاسم وحده إلى وضعين والفرعية Soomaaliyeed baa macnaha uu sharfaya marka baaqul boy ilka Allah ka siiyo Axmed Jabiye maadaama ay fanaaniin Soomaaliyeed أيوب لكن هبتدي رجل هيك حتى وحوله ما وحبسنا
dhageyso horta hobsad yar galeen good amaana siine aniga waa afka hay qaban horaa dhageyso hobsad ka galeen waxa waaye gabdhaha amaana sax waaye laakiin afaraas gale inay galaan ma hayno taasoo ayag laftigooda waa ku dhaliilana laakiin heeska wax hobsad la ma jirto heesta gabdhaha lagu xalmarinayay ragga gabdhaha soo caayeen waa lagu karbaashay hal loo karbaash ma leedahay ragga soo caayeen